munaasibadani ballaaran oo ahayd mid hanaankeeda dhicitaan si ballaaran loo soo agaasimay ayaa ahayd munaasibada dib loogu furayay sanad dugsiyeedka cusub ee 2017-2018 ee dugsiga Hablaha ee HUDDA ku yaala gudaha magaalada Burco. munaasibadani ballaaran ayaa waxaa ka soo qayb galay waalidiin, mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Togdheer, arday iyo sidoo kale maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi. munaasibadani ayaa waxaa go'aantii baadil ka soo jeediyay maamulka dugsigaasi, waxaana faahfaahin ka bixisay maraaxilkii kala duwan oo soo maray dugsigan iyo higsigiisa. waxaynu markaa meesha isugu nimi waa xafladii furitaanka sanadka cusub ee sanad dugsiyeedka markaa cusub 2017-2018 insha Allah iyo xidhitaankii kii hore markaa aynu ka soo gudubnay. waxa markii hore iskuulkan markaa ay ahayd muhiimadiisu in la helo saaxo banaan oo habluhu markaasi ay ku helaan waxbarasho fiican oo ay codkooda ku dhiiban karaan, taasoo noqotay goobta markaa ay macallimiinta hor fadhiyayaan ay yihiin hablo, sidaa darteed ay u saamaxdo wax badan inay markaasi suurtagal u noqoto inay markaa runtii markaa ay helaan. himiladaan gaarayna waxa ay inaanu helo in ay haweenku wax bari karaan, in ay haweenku noqon karaan dad wax dhigi kara, in ay haweenku noqon karaan dad wax soo saari kara. waalidkana waxaanu jecelahay inay markaa nala wadaan oo nala riixaan oo markaasi si aan u soo saarno hablaha akhlaaqdooda iyo adaabtooda iyo tacliintooda intuba markaasi ay dhisan tahay. ayaan waxaanu rajaynaynaa waalidkuna inuu markaa nagala qayb qaato sanad gudsiyeedkan cusub biidnillaahi tacaala. waxyaabaha cusub ee soo kordhin doono waxa kamid ah qayb markaasi computer oo maadaama ay dunida noqotay technology waxa ugu faraha badan leh hadda la isticmaalo inaanu markaa ka kaabno ardayda class 5 ilaa iyo class 8 markaa inay bartaan programada markaasi ugu horeeya la isticmaalo ee markaasi computerada inaanu biidnillaahi tacaala ugu dari doono haddii weynuhu ka dhigo subxaanahu wa tacaala. waxaan aad iyo aad u rajaynaya iskuulku inuu meel sare gaadho. mar walba waxa horeeya waxa weeye tarbiyada, tacliimta waxa ka horeeya waa tarbiyada. waxaan aad iyo aad u rajaynayaa inaynu markaa noqono iskuulka haweenku dhigto, haweenku haysto, haweenku maamulo ee gobolka u sareeya. ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajaynaya inaynu noqono macallimiinta nahay waalidka la'aantii waxa maanan qabaneen. waayo waalidku haddii aanu subaxii ardayga soo diyaarinaynin oo aanu noo soo diraynin si ay iskuulka u yimaadaan, runtii anagu waxba ma barneen arday. waayo cidna garab taagan ee awlaada noo soo diraysa ee awlaada halkan keenaysa waxa weeye idinka weeye. annaga waxaad tihiin, waxaan aaminsanahay inaad tihiin garabkeegii. aad iyo aadna waan idinku mahad celinaynaa. geesta kaleetana waxaa halkaasi nashiidooyin, khudbado kala duwan oo ku kala baxayay luuqadda Ingiriishta iyo sidoo kaleeto Carabiga ka soo jeediyay xubno ka mid ah ardayda kala duwan wax ka baratay dugsigaas. حمدا لمن نبيه قد بعث فذوقت بعوثه من قد عسى ثم الصلاة والسلام ما حكت حمائم حمائمها إذا بكت وهست القصون أنفاس الصبا فهيج بابة لمن صبا ولمع البرق إذا الغيب وكف وضاف بالبيت منيب واعتكف. بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوداني كتاب الله يجمعنا بسلمان وحساني ولا أرض تفرقنا ولا عرق يمزقنا عباد الله إخواني رسول الله قدوتنا بيت الله قبلتنا على اسم الله دولتنا على شرع وإيمان فتحنا القرب والشرق نشرنا العدل والصدق نشرنا ديننا الحق وذاك الفتح رباني. My school is the one of the best schools in our country because he have high education and his teachers are honest and clever and they teach the Sharia Islam. jahli waa dhalan doorshe dhaawac weeye ragaado dhabarku ku jaraayo dhakhtarka ka walaaco dhaymahan ku daweyniyo nafta aad ku dhaqaaqdiyo dhabarku ku jaraaye dhalintii wadankayga iyada ku dhaqayse ku dhaqaaqa tacliinta. anigoo ku hadlaya afka waalidiinta halkan ay dhigato awlaadoodu waxa weeye iskuulkan iskuul aad iyo aad u qiimo badan weeye. iskuul tarbiyatul islaamiya awlaada lagu dhaqo weeye oo laga laga dhaqan geliyo, taasoo qodobka ugu muhiimsan uu yahay iskuul u khaasa uu yahay gabdhaha iyo hablaha u khaasa oo ay u dhigaan macallimiin hablaahi ay u dhigaan wax u dhigaan. marka tarbiyadu aad iyo aad u wanaagsan ayay ku dhaqaan macallimiintu caruurta. gabagabadii munaasabadaasi waxaa dala ka soo jeediyay mas'uul ka socday wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland ee gobolka Togdheer, waxaana uu hambaliyay bogaadin soo jeediyay maamulka iyo macallimiinta dugsigan ee dadaalka dheer bixiyay. sharaf iyo magac iyo maamuus ayay noo tahay haddana wasaaradda waxbarashada inaanu kala soo qayb galno xafladda tan qiimaha iyo qaayaha leh ee ay iskuulkiina HUDDA ku furanaysaan sanad dugsiyeedkan 2017-2018 sanad barwaaqo iyo bashbash ilaahay ha inooga dhigo. iskuulkan xafladiisa ilaa maalintii la furay ilaa maanta waan ka soo qayb galayay waana u hambalyeynay. waxaana muuqata inuu guulo badan soo hooyay. waxaad ka garanaysaa tirada iyo nambarka ayaad ka garanaysaa iyadoo in yar marka hambalyaan leeyahay insha Allah taala.
sida maamulka iyo macallimiintu ay ka dhawaajiyeen ila al-amaam insha Allah ta'ala secondary iyo jaamacad baynay gaaraan hadii Ilaahay ka dhigo mujtamacooda geestooda qabtaano Ilaahay la qabto in Ilaahay uga karjeynina gabagabadii waxaa halkaasi lagu guddoonsiiyay abaalmarino kala duwan ay ku mutaysteen dadaalka ay ardaydu muujiyeen sana dugsiyeedkii dhammaaday lagu guddoonsiiyay ardaydaasi waa Khalid Bakayle fogaana ragga xorta Star TV Burco.